بسم الله الرحمن الرحيم. أو أحكبرنا ويدينتنا وراء convertible securities خاصة convertible bond و convertible preferred shares. فضلا انت آذن دقيسان قيحدا waxaad lifaaqa fiideo ka soo dhageysataa micnaha financial securities ama financial instruments oo ah warqadaha maaliyadda, micnaha bond ama warqad maaliyadeed oo deyn ah, sidoo kale micnaha shares ama warqad maaliyadeed oo saami ah, iyo micnaha preferred shares ama saami la doorbiday ama mudnaan la siiyey. haddaan markaan qeexno micnaha convertible securities waa warqad maaliyadeed oo loo rogi karo ama loo bedeli karo nuuc kale oo ka tirsan warqadaha maaliyadda, khaasatan waxaa laga soo bedelayaa warqad maaliyadeed oo deyn ah sida bond ama preferred shares oo ah saami mudnaan la siiyey, waxaana loo bedelayaa inay noqdaan warqad maaliyadeed oo saami ah ama shares. si kale haddaan u dhigno waa warqad maaliyadeed oo laga soo bedelayo deyn loona bedelayo inay noqoto saami. taasna waa micnaha guud ee convertible securities. markana aan aragno micnaha convertible bond, midaas oo laga wado waa warqad maaliyadeed oo deyn ah, midaas oo leh sumad isku dhafka ah, waxaana loola jeedaa waxa ay leedahay ama kulansatay astaan deyn ah iyo astaan saami ama share. si kale haddaan u dhigno waa warqad maaliyadeed oo asal ahaan kusoo baxday deyn ahaan, balse haddii qofka markaas haysta uu rabo inuu ka dhigan karo warqad maaliyadeed oo saami ah loona ogol yahay. haddaba ogow, marka la soo saarayay ayaa waxaa lasii go'aamiyey lacalla haddii aad rabtid inaad deyntii ku bedelatid saami, waa imisa tirada saamiyada lagu ogol yahay. si aan u fahanno qeexidan, aan markan aragno tusaalahan, aan dhahno shirkadda XYZ ayaa waxa ay soo saartay warqad deyn ah oo loo rogi karo saami. calaboonna waxay kusoo baxday $1,000. dulsaarka waa 3% sanad waliba, midaas oo faa'iidada uu helayo qofka maalgashtaha ah ay tahay $30, midaasoo ku timid haddii 3% aan ku dhufanno lacagta calaboon ee kunka ah waxaa soo baxaysa $30. muddada uu boonkan jirayo waa 5 sano. sidoo kale haddii qofka haysta boonkan uu go'aansado inuu ku bedelan karo saami, waxaa loo ogol yahay 20 saami. qiimaha rogidda ama qiimaha lagu bedelayo deynta loona bedelayo saami waa $50, midaasoo ku timid haddii boonka qiimihiisi uu yahay $1,000 laguna ogol yahay 20 saami. si aad qiimihii u heshid waa inaad kunkii u qaybisaa 20 saami si aad u heshid lacagta uu kuugu fadhin doono calaa saami waa imisa, midaas oo $50. ayadoo xaalkii sidaas yahay ayaa badi waxaa iman kara laba xaaladood midkood. mar waa in qiimihii saamiga uu kor aado, marna waa inuu hoos aado. si aan u fahanno, aan ku hormarno xaaladda uu qiimaha saamiga shirkadda uu sare aadi karo. aan dhahno qiimaha saamiga hadda waa $75, halkii markii la soo saaray warqadii maaliyadeed uu ahaa $50. micnaha waxaa ku darsoontay $25 calaa saami. haddaan xasuusanno, waxaa noola ogol yahay 20 saami inaan ku bedelan karno deyntii inaga maqnayd. ogow, mar waliba waxaa lagu ogolyahay waa 20 saami, ama qiimaha sidiisa ha ahaado ama kor ha aado ama ha yaraado, markastahay waa 20 saami. haddii aan markan dhahno waxaan ka guuraynaa deyntii oo waxaan ka mid noqonaynaa saamileyda shirkadda, waxaan deyntii ku bedelan karnaa 20 saami oo qiimo ahaan hadda ka dhigan $75 calaa saami. haddaan 20kii ku dhufanno 75, waxa ay noo soo baxaysaa $1,500. waana faa'iido fiican, waayo haddii lacagtii naga maqneed ay ahayd $1,000, hadda waxa ay noo noqotay $1,500, midaasoo ka dhigan inaan macaashnay $500. taladana waa inaan ka guurnaa deynta una guurnaa saamiga si aan u helno $500 oo dheeraadka ah. markana aan aragno haddii ay dhacdo in qiimihii saamiga shirkadda uu hoos aado, meeshii uu bilowgii ka ah 50 hadda wuxuu noqday 30. haddaan xasuusanno, waxaa noola ogolyahay mar waliba waa 20 saami. haddaan qiimaha hadda uu joogo saamiga oo ah $30 ku dhufanno 20kii saami, waxa ay noo soo baxaysaa in qiimihii maalgelinteenna ee hoos u dhacday oo ay noqotay $600. haddaba caqliga waxa uu dhigayaa inaan deyntii iska haysanno, waayo ayada ayaa qiimo badan oo waxaan helaynaa marka la gaaro dhammaadka muddada deynta $1,000, waxaana inoo sii dheer $30 oo aan helayno sanad waliba inta ay muddada deynta socoto. gunaanad, convertible bond ama warqad deyn ah loona bedelan karo saami haddii la rabo, waa fursad lagu ilaalinayo maslaxadda qofka deynta iska leh, oo haddii qiimaha saamiga uu kor aado uu ka faa'iidaysan karo, haddii hoos aadana uu deyntiisii sugan karo
oo mar waliba inuu faa'iido joogo qofka maalgashtaha ah oo deynta ay ka maqan tahay. hadda ka hor ayaan kasoo hadalnay qeexidda financial securities, bond, shares, stocks, preferred shares ee fadlan ka dhigayso lifaaq hoose. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ما تسندين وإنه مركل هذه ربي